waxaad naga dhageysanaysaan warbaahinta RBC oo aad ka maqashaan bogga internetka ee raxanreeb.com. ururada mucaaradka ee dalka Jamhuuriyadda Djibouti ayaa soo saaray baaq ku wajahan dadweynaha reer Djibouti oo ay ugu baaqayaan inay ka hor yimaadaan nidaamka dadweynaha xadgudubyada ku sameeya ee ka jira dalka Jamhuuriyadda Djibouti. waraysi arrimahaasi ku saabsan ayaanu kala yeelanay Axmed Riyaale oo xubin ka ah ururada mucaaradka ee dalka Djibouti oo dhawaana kulan ku yeeshay magaalada Brussels ee dalka Belgium. Axmed Riyaale waxa uu sidoo kale u qaabilsan yahay ururada mucaaradka ee Djibouti dhinaca warbaahinta. waraysigan oo dhinacyo badan taabanaya ayuu sidoo kale Axmed Riyaale kaga hadlayaa in shacabka reer Djibouti ay ka digtoonaadaan waxa uu ku yeeray gacan haatin dagaalo sokeeye oo ka jira gobolka Geeska Afrika. waxaana waraysiga uu bilowday sidan. waxa weeye ummadda u dhalatay dalka Jamhuuriyadda Djibouti guud ahaan amba xisbiga ahaadaan amba shakhs amba dad gaaraba ahaadaan waxa ay hadda muujiyeen guud ahaantooda inay ka soo horjeedaan sistemka dalka ka taliyo. ururka fadhigii u dambeeyay dadku way wada hadleen, way wada kulmeen, si gaargaara iyo si toosaba way u kulmeen, waxayna wada muujiyeen guud ahaantooda dhibta guud ee haysata dadweynaha ku nool dalka Jamhuuriyadda Djibouti iyo ka wada hadal mid caan ah iyo mid hoosaba iyo sidii looga hortagi lahaa ee ku habboon. waa tahay midhahaas marka ka soo baxay kulankaas aad yeelateen si gudaha dalka ay uga dhaqan galaan ilaa waxa aad ka hadlaysaan waa dalka Djibouti, maxaa talaabo aad qaadaysaan haddii aad tihiin ururadii idinka ee mucaaradka ee Djibouti? waxyaalada dadku sida gaargaarka ah iskula gorfeynayaan ayay taasi ka mid ahayd iyo sidii loo hawlgelin lahaa fikir ka taabagalo dalka gudihiisa. dalka gudihiisa sida aan horeyba aan dhowr jeer ugu celceliyey waa dal u xidhan dadkaana ma ogola hadba qof ka hadlo arrimo siyaasadeed. hadduu qof ka hadlo arrimo siyaasadeed jeel hoosaad la yidhaaha gabood ayaa markaaba loo taxaabaa, xorriyadda ayaa laga qadaa. maadaama ay sidaa tahay waxaa kulley welina ay socotaa gorfaynteedu soconna doontaa, bal in qaabka ugu muhiimsan ee arrimaha dalka gudihiisa looga taabagelin lahaa in la wado yaa ilaa hadda socota. waa tahay dhinaca kale waxaan rabaa in wax kaa weydiiyo xagga safaaradaha dibadda ee wadamada hadday Yurub yihiin ama kuwa kale Afrikaanka ah ee Brussels kulanka aad ku qabateen, iyaga yaa idinka yimid ama bulshada caalamka yaa idinkaga yimid shirka oo goobjoog idin lahaa? arrimihii ugu dambeeyay ama shirkii ugu dambeeyay wuxuu lahaa shir wada sheekaysi iyo xusid la xusaayo dad rayida oo loogu geystay xasuuq dalka gudihiisa waqtiyaashina soo dhaafay. waxaase la rajaynayaa horta in laga dhaadhiciyo nimanka reer galbeedka ah dhibka jirta dalka, loo macneeyo in ay waxa dadka la tusaya amba dhalan habaabiska ah ee ka fog xaqiiqada inay wax jira ahayd waxa jira ay tahay dib lagu hayo dadka caalamkana laga qariyo. marka kii iminka ugu dambeeyay shirkii ugu dambeeyey sidaas baa horta looga hadlayay, xusub buu u badnaa iyo wada sheekaysi axsaabta mucaaradka ah oo sidii loo gaarsiin lahaa dadka. kanka wixii ka dambeeya waxaa la rajaynayaa in lagu soo macsuubo muxuu ahaa hadba dadka loo arko inay waxtar u yihiin dadweynaha la dacdaroomaya dalka gudihiisa. waa tahay waxaa sidoo kale jirtay intii shirku uu socday mudaharaad ka dhacayay safaaradda Djibouti magaalada Paris ee dalka Faransiiska. isagu kaas maxaad kala socoteen intii shirkiina uu dhacay? dad u dhashay dalka Jamhuuriyadda Djibouti oo iyaguna mucaarada u sameeyey. dadka halkaa wax ka waday qaybahoodii kale shirka way joogeen. wax la og yahay buu ahaa la tusayay bulshada weynta caalamka inuu yahay dadkan howlahan qaban qaabinaya dad diboon inay yihiin, la kala yaacaya hadda dib u geysanaya rajiimka ka arrimiya dalka Jamhuuriyadda Djibouti. dadkuna waxay ahayd dad u dhashay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. waa tahay marka guud ahaan la eego mudaharaadkaas uu dhacay shirkii mucaaradka ay lahaayeen
ma isleedahay dareenka ku aadan arrinta Djibouti ka socotay dadka siday u arkaan dadka waliba dibadda joogay reer Djibouti wuu soo kordhaya dareenkaas ma isleedahay si boqolkiiba boqol ah kulley dad waxaana hambalyo badan iyo gudaha dalka iyo dibaddaba dadka markaa abaabulay loo soo gudbinayay kontaagyo badan oo nala soo xidhiidhana waxa ay muujiyeen inay arrintaasi aad ay ugu farxeen taasi waxay ku tusaysaa kasoo horjeedka dadweynaha amba gudaha ay joogaan amba dibadda ay joogaan systemka dalka ka taliya waydan soo dhaweeyeen si aadana way usoo dhaweeyeen waa tahay waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo oo kale ururada ka qayb galay kulankaas dad badan baan magacyada ururada iyo intay ahaayeen iyo madaxdii aan xusuusan haddii aadna xusuusiso ururada ka qayb galay iyo madaxda imisay kala ahaayeen walaal waxaa kasoo qayb galay baartiyaal axsaab siyaasadeed iyo ururkii qaban qaabiyey shirka waxaa kasoo qayb ARD waa baarti ka jira dalka jamhuuriyadda Djibouti iyo MRD hogaamiyaha MRD-ga iyo ururkii qaban qaabiyey shirka iyo bulsho weyn kale oo badan oo reer Djibouti ah waa tahay intaas ayaa ugu weynay baartiyaashii kasoo qayb galay waada si fiican ayaan gartay waxaan rabaa marka inaad si guud noo sharaxdo haddana waxa loogu ballamay waqtiyada soo socda in kulamo kale ay dhici doonaan arrimahan ku saabsan kulan soo socda kulley waa la soo sheegi doonaa se u malayn maayo dadaalka hadda bilaama inuu joogsani doono wixii ka dambeeya haddana loo baahda in la isla gorfeeyo wuxuu noqon doonaa wax lasoo sheego waanaad ogaan doontiin hadduu ilaahay naftan u daayo waa tahay axmed riyaale oo ururada mucaaradka waxaan kaa codsan mudana wariya in yaroo qoraala inaan waxaan u sheegayaa dadweynaha u dhashay dalka jamhuuriyadda Djibouti inay maanta uu dalkoogu maraayo arrimo aad u xasaasi ah oo adag oo u baahan inuu dadweynuhu maanta ka badbaado xaaladda adag u maraayo waxaan ugu yeeraynaa dadweynaha jamhuuriyadda Djibouti inuu maanta ay ku xiran tahay gacantooda badbaadadu waa in ay kacaan gacanta isqabsadaan si uga badbaado dalku dagaal la sokeeyo waxaana ka jira geeska Afrika hadda gacan haadis badan oo loo gacan haadinayo dadweynaha u dhashay dalka jamhuuriyadda Djibouti dibta loo haysata dadka ee 1 iyo 2 iyo 3 ee aadka u badan iyo gacan haadintaasi waxay keenayaan dagaal la sokeeyo oo dalka ka qarxo sidaa darteed waxaan ku boorinaynaa dadweynaha u dhashay dalka jamhuuriyadda Djibouti inay gacmaha isqabsadaan ay xidhaan jidadka magaalada iyagoo ku codsanayo xuquuqdooda wadaninimo iyagoo muujinayo inay diidan yihiin dictatoriyadda ka jirta iyagoo doonayo cadaalad iyo xorriyad buuxdo sidaan wada ognahay waxaa loo geystaa dadka rayidka ah bulshada rayidka ah ganacsatada aqoon-yahanka dib aad u ballaaran dibtaasi way eriyday dadkii baad aragtaa inay dadka halda ka yaacayaan ay u yaacayaan dibadda sidaa awgeed waxaan u jeedinaynaa ambaanu kala hadlaynaa dadweynuhu inay xaqooga aba waajibkooga wadanaba ay gudaan sidaa darteed waxaan ka codsanayaa dalka jamhuuriyadda Djibouti inaad waajibkiina qaranniba aad gudataan oo aad la dagaalantaan dictatorka ood gacmaha isqabsataan intaas ayaan ku diray mudan wariye waanad maasan tahay waa tahay axmed